تضبط الصومالية كم تاي إن أمريكا وكتر قال إنه بربرية أمريكا كاس هدانو مالين تصبحين وجوجو وضلك أنو كتجين waxay ahayd xal uu gaari lahaa sida Ethiopia u xaliyay oo Ingiriiska shir intii la isugu geeyay loo xaliyay oo mucaaradka looga saaray Soomaaliya laguma sameyn waan la burburiyay inay saan u burburto waa rabi wadamada reer galbeedka Mareykanka hogaaminayo aan dhihi karaa waxaana aad uga shaqeeyay ambassador Bishop nin la yiraahdo qoraan ka sameeyay oo aan ka qoray qoraal fara badan oo aan kaga sheekay ambassadorkaas wixii uu ka shaqeeyay oo ahayd burburinta Soomaaliya saasay Soomaaliya ku burburtay dadkii markay soo galeen hadaanan maxay ahayd maaragtay dawlado aanay gacan siinin oo aanay maxaan ku iraahdaa iyagii aanay joogin oo ay wada hadalsiineen sida Ethiopianka loo wada hadalsiin yani Soomaaliya ma helin fursadaas mana la siin oo loogu talagalay dhihi kara wadamada reer galbeedka safaarada ay ka wada qaateen cid ay noqotay marka waxa isku soo haray dadkii Soomaalida ah oo jabhad oo maxaan ku wada hubeysan oo qarkood intooda badan reer baadiyeen hubna haysto ma garat waxa bilowday in la isgumaado marka taasay marka yani burburka saas ku yimid markii lacagta laga goostay Maxamed Saad Barre oo lacagtii oo World Bank IMF ta iyo maxaan ku iraahdaa hay'adihi kale oo bixin jiray oo Paris Club oo kale wixii Europeanka iyo Mareykanka ay bixin jireen ay wada gooyeen wayna ku talagaleen in Soomaaliya burbur